السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا موضوعنا مانتا oo aan ku soo qaadanayno 9 shay oo hadaad samayso aad ku gahananaysid guusha aad rabto. Waxaa soo jeedinaya anigoo Maxamuud Laag. Guul ama success dictionary-ga waxa uu ku macneeyaa in qofku helo maal badan iyo magac dheer, balse qeexida aan isticmaalina ayaa noqonayso kamira dhalinta hadaf iyo himilo qof leeyahay. Qof kasta oo inaga mid ah wuxuu jecel yahay inuu guul gaadho noloshiisa, wuxuuna neceb yahay guul darrada iyo fashilka. cabsi aan ka qabno guul darrada ayaa badankeena naga dhigta kuwa aan lahayn isku dayo iyo hal abuuro. Waxaan halkan ku soo gudbinaynaa 9 shay oo dad badan sameeyeen kadibna hadafkoodii gaadheen. Qof kasta oo raacana fursad wanaagsan u siinaysa sidoo kale inuu guul weyn ka gaadho noloshiisa. Hadafku waa fikrad mustaqbal ama natiijo qof ku hamiyo asagoo qorsheynaya dadaalna u galaya siduu u gaari lahaa. inaan hadaf iyo hami sare yeelano waxay nolosheena u yeelaysaa macno. Yeelashada hadaf ayaa waxa kaliya lagu xaqiijin karaa wax badan oo isheena ama maskaxdeenu qaban karin. Saynistiga caanka Albert Einstein ayaa yiri, haddii aad rabto inaad ku noolaato nolol farxad leh, ha ku ladhin noloshaada dad ama maal ee ku lifaaq hadaf sax ah. Waa maxay hadafka aad leedahay noloshaada? Maxaad ku riyootaa inaad noqoto? Maxaad rabtaa inaad adduunka ku soo kordhiso? Dhibaatadeesa ayaad rabtaa inaad xalliso intaad nooshahay. haddii uu jiro waxaad ku hamido naftaaduna ku raaxaysato sameynteeda misna mustaqbal wanaagsan u leh adiga iyo bulshada kugu xeeranba, kaas ayaad ka dhigan kartaa hadaf kumana caajisaysid sameyntiisa. 2 qorshe waa dejinta iyo qaadadhigista nidaam aad ku jaangoysay inaad ku gaadho hadafka aad hiigsanayso adiga oo ku xisaabtamaya waqtiga, maalka iyo muruqa loo baahan yahay. dejinta qorshe aad raacdo waa mid aas u ah xaqiijinta iyo kamira dhalinta hadafka aad rabto inaad gaadho. Qoraacana oo lagu magacaabo Antonio de Saint ayaa yiri, hadaf aan lahayn qorshe loo maro waa iska rajo uun. Qorshaha saxda ah wuxuu kugu toosinayaa wadada aad u maraysid guusha hadafkaada. Qaabka ugu wanaagsan ee uu qofku qorshe ku samaysan karo ayaa ah inuu qofku yeesho qorshe sanadeed kadibna u sii jejebiyo mid bileed, mid toddobaad ilaa iyo mid maalmeed si ay kugu fududaato fulinta qorshahagaas. 3 dadaal. waxaad samaysatay hadaf, qorshihii aad ku gaadhi lahaydna waad dejisay. waxaa lagaaga baahan yahay inaad geliso waqtigaaga, cududaada, maalkaada si aad u noqoto mid gaadha hadafkiisa. qodobkan ayaa ah midka ugu muhiimsan sababtoo ah wax kasta oo aad rabtid inaad gaadho waa inaad ku bixiso dadaal maskaxeed, mid muruq iyo mid maal. inta aad ku jirto rumaynta riyadaada waxaad la kulmaysaa caqabado aad u badan oo ku gaarsiinaya inaad ka tanaasusho gaarista hadafkaaga. marna ha joojin oo ha ka quusan rumaynta riyadaada, sababtoo ah kacakufka ayaa ah jaranjarada lagu gaadho guusha. Michael Jordan, ciyaaryaankii ugu wanaagsanaa abid ciyaarta basketballka, ayaa yiri asagoo dib u mulucsanaya noloshiisa hore, waxaan la waayay 9,000 oo jeer oon toogtay goosha. inta aan ciyaarayay waxaan guul daraystay 300 oo goor 26 marxaladood oo kala duwan. waxaa la igu aaminay kubado badan oo kooxdu ku guuleysan lahayd, balse waan lumiyay. waan guul daraystay xilliyo kala duwan. guuldarooyinka soo maray noloshayda ayaana ah sababta aan u guuleystay. caqabaduhu way jirayaan weligood ee u qaado fursad aad wax ku barato. ha noqon mid niyad jaba oo joojiya. guushaada iyo guuldarradaada waxay ku xidhan tahay hadba dadaalka iyo waqtiga aad ku bixiso ka gudbista jidgooyooyinka nolosha ee ku soo marayo. 4 kobci aqoontaada. waxaan ku noolnahay duni isbeddelkeedu xawli yahay oo ay suurtagal tahay in wax badan oo maanta jiro gebi ahaanba isbeddelaan. sidaa awgeed waxaa laga maarmaan ah inaan mar kasta baranaa xirfado iyo aqoon cusub si aynu ula jaanqaadno isbeddelkan xawaaraysan ee maanta dunida ka socdo. tusaale, Melinda Gates oo ah haweeney bilyaneerada oo ay walaalo yihiin Bill Gates ayaa sheegtay in hal qof 3 dalka Mareykanka ku nool ay ku qasbanaan doonaan inay bedelaan shaqadooda 20 sano ee soo socda sababo la xiriira mashiinada iyo tiknoolajiyadda ka socota adduunka awgood. waxa kale oo ay sheegtay in haddii aan rabno inaan ka guuleysano caqabadahaas ay waajib nagu tahay inaan baranaa xirfado iyo aqoonno cusub. mana ahan hal mar ee waa inaan baranaa ayay tiri gebi ahaanba xilliyada aan shaqaynayno oo dhan. badi dadka heerka sare ka gaadhay noloshooda waa dad ay caado u tahay inay aqoon kordhistaan kamana caajisaan barashada wax kasta oo mustaqbalkooda anfacaya.
Warren Buffett wuxuu akhriyaa 5 ilaa iyo 6 saacadood maalin kasta, halka Bill Gates uu akhriyo 50 buug sanad kasta. Mark Zuckerberg, mulkiilaha Facebook, ayaa isaguna 7 ama 2 toddobaadba mar akhriya buug. Si aynu u noqon kuwo waagu ka bariyay, waa inaan joogtaynaa kobcinta garaadkeena aqooneed una diyaargarownaa isbeddelka isdaba joogga ah ee dunida ka socda maanta. 5. Waqtigaaga ka faa'iidayso. Waqtiga ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu qaalisan dunida aan joogno, mana jiro wax la qiimo ah ama gooyo. Eebbaweyne kor ahaaye waxa uu maalin kasta oo timaado nagu galadaystay 86,400 oo sakan oo bilaash ah si cadaalada dhammaanteen. Ma aha haysashada 86,400 oo sakan farqiga inoo dhexeeyo, waa qaabka aanu isticmaalno ee uga faa'iidaysano. Qoraacana oo la yiraahdo William Penn ayaa yiri waqtiga asaga oo ka hadlayo, waqtiga waa shayga aan ugu baahi badanahay balse aan ugu liidano dhanka ka faa'iidaysiga. Waqtigaada ku bixi wax u qalma oo aakhiriya adduunba manfac iyo horumar ku leh. Haddaad wax daawanayso, akhrinayso ama samaynayso ha noqdo wax aad ka faa'iidayso oo akhbaar iyo macluumaad ka helayso. Qoraacana oo reer Scottish ayaa yiri hanti luntay waxaad ku bedeli midaad shaqaysay, cilmi lumayna waxaad ku bedeli midaad baratay, caafimaadna waxaa kuu bedeli dawo, balse waqti lumay waa sida uu ku tagay dibna uma soo laabanaya abidkii. Waxa kaliya ee guul ku keeni kara ama guuldarro ku keeni kara waa waqtigaaga iyo meesha aad ku bixiso. U isticmaal waqtigaaga wax ka caawinayo inaad hesho hadafkaaga. Dhagayste, sikankaagu ha kuu tirsanaado. 6. Naftaada runta bar. Cadowga koobaad ee leenahay waa nafteenna, sababtoo ah waxay la saaxiib tahay cadowga oo Ilaahay inooga digay. Dhagartiisa waa shaydaane. Waxaan jecel yahay inaan aakhira seegno adduunna sidoo kale. Markasta nafteennu way inaga diidaa inaan dadaal ku samayno nolosheenna, waxayna inoo sheegtaa waa adayg hawshaas, macquul ma ahan, iyo mar kalaad qaban, iyadoo ujeedadeedu tahay inaysan ka bixin xayndaabka dhib la'aanta ah ama comfort zone-ka. Dhibka iyo kacakufka waa arrin muhiim ah nolosheenna. Haddii aynan nafteenna barina inay ku samirtana ma noqonayno kuwo heer ka gaar noloshooda. Sidaa darteed waa inaan nolosheenna u carbinaa si walba oo u suurtagelinayso inaan gaarno hadafkeena. 7. Samee sawir maskaxeed ama imagination. Sawir maskaxeedku waa qaab ay maskaxdu ku suuraynayso sawir maskaxda ah oo aan markaa muuqan jiritaankiisa, iyada oo sawirayso suuragelnimada shaygaas. Isagoo bogaadinaya awoodda ay leedahay in maskaxda wax lagu sawiro, ayaa waxa uu yiri saynistiga caanka ah Albert Einstein, imagination is more important than knowledge. oo macnaheedu tahay in qofku wax maskaxdiisa ka awaalo ayaa aad uga muhiimsan cilmiga ama aqoonta. Dhammaan dadka leh awoodda hal abuur waa dad sidoo kale leh awood ay wax ku suureeyaan maskaxdooda. khuburo ka takhasusay cilmi nafsiga ayaa sheegay in qofku haddii uu sameeyo sawir maskaxeed ku saabsan hadafkiisa ay ka caawinayso in qaybaha kala duwan ee maskaxdu ka wada shaqeeyaan kuna mashquulaan suuragelinimada hadafkaas. si ay kugu fududaato helista hadafkaada, samee sawir maskaxeed sax ah oo ku salaysan waxa aad higsanayso. 8. ku faraxsano waxaad qabanayso. mar la weydiiyay aas-aasihii iPhone Steve Jobs muhiimadda ay leedahay farxad inuu qofku wax uu qabanayo ku haysto, ayaa wuxuu yiri sida kaliya ee aad ku qaban karto shaqo wanaagsan waa inaad ku faraxsan tahay, xiisana u hayso waxa aad qabanaysid. haddii aadan helin weli waxa aad ku faraxsan tahay, raadi ha sugine, maadaama uu qalbigaagu garanayo marka aad hesho shaygaas. qabashada shaqo aad ku faraxsan tahay waa mid xiiso iyo jacayl kuu siinayso in maalin kasta aad ku dadaasho shaygaas si hagar la'aan ah. qofka oo isku daya waqtigiisana ku lumiya waxa uusan jeclayn qabashadiisa waa khasaaraha ugu weyn ee qof soo gaari kara noloshiisa, xataa hadduu heer sare ka gaaro shaygaas, sababtoo ah kama helayo farxad. 9. kalsooni. hadaf kasta oo aad leedahay haddii aysan wehelin aaminsanaan aad ku qabto naftaada iyo kartidaada, ma noqonayo hadafkaas mid aad gaaraysid. mar ay bogaadisay qiimaha ay kalsoonidu u leedahay bini'aadamka ayaa haweeneyda caanka ah ee la yiraahdo Oprah Winfrey tiri, kalsoonida ku jirta jirkeenna, maskaxdeenna iyo ruuxdeenna ayaa inoo ogolaata markasta inaan ku bareerno curinta waxyaabo cusub oo aynan hubin natiijadooda. sida ugu wanaagsan ee ku dhisi karti kalsoonideeda ayaa ah inaad qeexdo qofkaad tahay iyo waxa aad ka rabto noloshaada, isla markaasna
khibrado iyo xirfadaha aad u baahan tahay aad xoojiso barashadooda. markasta oo aad ku wanaagsanaato waxa ka caawinayo inaad gaadho hadafkaaga. waxa hubaala in kalsoonidaaduna kordhiso. gunaanad dunida waxaa ku nool 8 bilyan dad gaadhayo. qof kastana waxaa jira waxa uu ku wanaagsan yahay. raadi waxaad ku fiican tahay, farxadna ka helaysid. hadaf ka dhigo oo ku dadaal, waqtigaagana ku bixi. kalsooni buuxda ku qab naftaada. waxaa hubaala inaad gaaraysid shaygaas hadduu Eebbe kuu qoray. haddaad ku cusub tahay channelka ku soo biir si aad ula socotid mowduucyada kale. waa aniga oo Maxamuud Laaga oo idin leh intaan ku kulmayno mowduuca xigo hadduu Eebbe ogolaado. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.